gabdho waxaan dhihi lahaa wiilash walaalaheen inaad u naxariisatiin waalidiintana inaad ka dhaadhicisiin wax wiilkan adiga jeceshahay aduu waxba haysan aduu xastaba maxaa la dhahaa inaad adiga ku qanacsan tahay oo aad ku jeceshahay guurka ayaa ah rugni ka mid ah rugniyada diinteena islaamka taasoo libid iyo laboodkuba ay ku doorsadaan si ay uga fogaadaan fidinta iyo zinada uu nabigeena inoo sheegay inay tahay dambi weyn oo awaaqibtiisa leh dhanka kale gobolka waqooyi bari dhalinyarada intooda badan sheegeen inay ku qabaan dhibaatooyin ay ka qabaan guurka joogna guurkeeda waa qaali alxamdulillaah ilaahay mahad iska leh marka waxaan codsan lahayn guurka magaalada in dhalinyarada loo raqiiso dhalinyarada wax ma haystaan marka ani waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada Gaaris degan waqti dheer aan ilaa hadda guursanin marka waxaan jeclaan lahaa in arrimahaas wax laga qabto sababtoo ah dhalinyaro badan magaalada joogta marka way iska guursan lahaayeen laakiin duruuf baa iska jirta dhanka kale maxay tahay sababta keentay in dhalinta guurka ku adkaado haddaba qaar ka mid ah dhalinta ayaa ka hadlay dareenkooda siday xaalku ku jira waxay doonaysaa horta waxay hooyadeed aabaheed ama asalkeeda dhanba u leheen inay gacanta ku qabato waxay raadinaysaa inay samaysato ma aqaano nin hanti leh haddii lagu talagelin xaggee ka keenaysaa ilaahay goonta ugu qorin waxaan dhihi lahay waxay ku qaaliyeen eegaas sukaansata mise sheekada dhammaan waxay ka bilaabayeen guri caynka dhig alaab caynka dhig dahra caynka dhig tan dhinaca gabdhaha ka imaato kale waxa waaye gabadha kugu xujiyso waxyaalo aad awoodin waa tabartaada ahayn ee keen lagu dhaw taana macquul maaha waayo qof kasta taagtiisa tabartiisa qodax uga tagtaa Batula waxay ka mid tahay gabdhaha ku nool ismaamulkani Gaarisa waxayna talo la wadaagtay gabdhaha iyadoo sheegtay in wiilasha laga qafiifiyo qarashaadka badan ee ku baxa guurka si culayska ugu yaraado gabdha maxaan dhihi lahay midaas iska daaya waayadan dambe aad ay u soo badatay waxaad arkaysaa wiil intaas oo sano gabar shukaansanaya maxaa intaas mad guursatay muxuu leeyahay gabadhii saas ay u baahan tahay in loo sameeyo anigan hadda intaas waan shaqaysanaya gabdho wax badan ayaad maqasheen hadaladaas ayaan u maleynayaa inaad iska dhaaftaan ayaa muhiimsan oo wiilasha walaalaheena guurka u raqiisisiin inuu ku adkeenin waalidiintana waxaan ka codsanayaa inaysan gabdhaha wiilasha gabadhooda jecel inaynan ku xirin qarash badan waayo wixii loo keeno inay qaataan waayo inaad ka fikirtiin muhiim ah gabadhiina mustaqbalkeeda nolosheeda si kastaba ahaatee guurka ayaa haddii uu sidaasi ku sii socdo waxa uu noqonayaa ganacsi ka dhaxeeya ragga iyo dumarka